بسم الله maanta taariikhdu tahay 28 bisha shanaad 2023 kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa iyagoo tixgelinaya cawashada bulshada iyo isbedelka yar ee ku yimid qiimaha shidaalka isla markaasna ka fakaraya horumarinta danta guud iyo dhaqaalaha dalka ay isla garteen in ay qiimo dhibis u sameeyaan bulshada gobolka Banaadir waxayna shirkaduhu isla go'aamiyeen in qiimaha korontada laga dhimo 0.05 cent ama 5 cent halkii kilowatt lagana dhigo 41 cent kilowatt-ki halkii uu horay uga ahaa 46 cent halkii kilowatt laga bilaabo 1 bisha 6 2023 haddaba shirkadaha korontadu waxay u taagan yihiin horumarinta adeegyada korontada dalka isla markaasna waxay diyaar u yihiin in ay hadba culaysyada jira kala qayb qaataan bulshadooda waxaan rajaynaynaa in dhammaan bulshada gobolka Banaadir ka wada faa'iideysan doonaan qiimo dhimistan insha Allah ta'ala waa mahadsantiin